وكوي هوغامياشا ugu caansan ee kooxda Xamaas tan iyo markii ay Xamaas Yuhuudda ku qaaday duulaankii ay muddada ku taamaysay weydiimo badan ayaa ka dhashay maskaxdii ka dambeysay weerarkii dhimashada badnaa in badan oo ka mid ah ragga caynaanka u haya ee kooxda Gaza gacanta ku haysa ayaa ah kuwa aan aad loo aqoon halka qaarkood ay waqti badan oo cimrigooda ku qaateen ka baxsashada isku daydil oo ay Israa'iil ku layso kuwani waa hogaamiyaasha ugu caansan ee Xamaas Ismaaciil Haniya waxa loo garan og yahay hogaamiyaha guud ee Xamaas Haniya waa xubin caan ah oo dhaqdhaqaaqa ka tirsan tan iyo 1980maadkii kaasoo 1989kii ay Israa'iil xabsiga dhigtay muddo 3 sano ah iyadoo kaga jawaabaysa kacdoonkii koowaad ee Falastiiniyiinta kadibna waxa 1992 loo tarxiiray meel cidla oo u dhaxaysa Israa'iil iyo Lubnaan isaga iyo tiro hoggaanka Xamaas kamida kadib sanad uu dibad wareeg ahaa Gaza ayuu ku laabtay 1997 ayaa loo doortay hogaamiyaha ruuxiga ee Xamaas 2006 madaxweyne Maxamuud Cabbaas ayaa Ismaaciil Haniya u magacaabay ra'iisul wasaaraha Falastiin kadib markii ay Xamaas guulihii u badnaa ka gaadhay doorashooyinkii qaran ee qabsoomay balse sanad kadib xilkii waa laga qaaday kadib markii ay qulqulatooyin dhimasho badnaa oo usbuuc socotay ay kooxdu xisbigii Maxamuud Cabbaas Fatah ka saartay marinka Gaza Haniya wuu iska diiday xilka qaadistii lagu sameeyay isagoo shactiro ku tilmaamay carabkana ku adkeeyay in dawladdiisu aanay sinaba uga tagayn mas'uuliyadaha qaran ee u hayaan shacabka reer Falastiin iyo inay sii wadaan maamulida Gaza 2017 ayaa loo doortay madaxa guud ee xafiiska siyaasadda Xamaas 2018kiina dawladda Mareykanka ayaa ku dartay liiska waxa ay ugu yeerto argagixisada caalamiga Haniya oo qadar ku noolaa sanadihii u dambeeyay ay weydaartay 2 Yaxya Sinwar hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa Xamaas ee marinka Gaza Yaxya Sinwar waxa uu dhashay 1962 waa asaasaha kooxda adeegga nabadgelyada Xamaas ee Majdi taasoo maamusha arrimaha nabadgelyada gudaha baaritaan ku samaysa jaajuusiinta wariifinta laga shakiyo inay Israa'iil u shaqeeyaan isla markaana waa kooxda kabaha la gashata sirdoonka Israa'iil iyo saraakiishooda adeegyada amniga Sinwar 3 jeer ayaa la xiray markii uu dambeysayna waxay ahayd 1988 isagoo lagu xukumay 4 xabsi daa'in si kastaba waxa uu ka mid ahaa 127 qof oo maxaabiis Falastiiniyiin iyo carabta Israa'iil degta oo ay Israa'iil sii daysay iyadoo ku bedelanaysa askar Yuhuuda oo ay Xamaas haysatay muddo sanad ah Yaxya Sinwar booskiisa ayuu ku laabtay isagoo ah hogaamiye Xamaas oo aad u caan baxay waxaana 2017kii loo xushay madaxii xafiiska siyaasadda kooxda ee marinka Gaza 2015kiina dawladda Mareykanka ayaa ku dartay liiskeeda waxay u taqaano argagixiyaasha caalamiga Maxamed Dayf wuxuu calanka u sidaa guutada Cisuudiin al-Qazaam oo ah garabka militariga ee dhaqdhaqaaqa Xamaas waa nin tira badan oo Falastiiniintu ay u yaqaaniin inuu yahay nin dhaka badan halka ay Yuhuuddu u taqaan bisadda 9 nafood leh maamulka Yuhuuddu 1989kii ayay xabsiga dhigeen kadib markii uu sameeyay guutada al-Qasaam ee gacanta loo taagay iyadoo looga gal leeyahay qabqabashada ciidanka Israa'iil siideyntiisa kadib wuxuu injineerada ku kaalmeeyay dhismaha dhundhuleedyada dagaalamayaasha kooxda Xamaas u saamaxay inay Israa'iil gudaheeda galaan waa godadka dhulka hoostooda laga qodee Dayf waa mid ka mid ah ragga ay Israa'iil ugu raadinta badan tahay waxayna Israa'iiliyiintu ku haystaan qorshayntii iyo korjoogtayntii qarax bas oo 1996 ay ku nafwaayeen 10 Israa'iiliyiina iyo kaalintii uu bartamihii 1990maadkii ku lahaa qafaalashada iyo dilka 3 askari oo Israa'iiliyiina Israa'iil 2000 ayay xidhay ninkan balse ilbiriqsiyadii koowaad ee kacdoonkii Falastiiniyiinta ayuu baxsaday
ilaa xilliga raad yar buu reebay. waxaa jira 3 sawir oo qura oo laga hayo. mid waa taariikhaysan yahay, midna waa afdaboolan yahay, midka saddexaadna waa harkiisa. isku daygii shirqool ee noloshiisa ugu halista badnaa wuxuu dhacay sanadii 2002. Dave waa uu ka badbaaday, balse wuxuu ku waayay ishiisa. yuhuuduse waxay tiri cag iyo gacan ayuu sidoo kale ku waayay weerarkaas. hadalkuna dhib ayuu ku yahay. xoogga amniga Israa'iil mar kale ayay ku fashilmeen inay dilaan Dave. waana 2014 duulaankii ay marinka qase ku qaadeen. waxayse weerarkaasi ku dileen xaaskiisii iyo 2 carruurtiisii ka mid ah. 4. Marwan Ciise, la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jack Sullivan ayaa sheegay in Marwan ay dileen ciidanka Israa'iil. kadibna warbaahinta Israa'iil ayaa ku warantay inuu ku dhintay duqayn ka dhacday god dhulka hoostiisa ku yaala kaamka qaxootiga ee la yiraahdo Nusayraat. taliyaha sare waxaa sidoo kale loo yaqaanaa ninka harka ah ee aan la arag, waxaana loo arkaa gacanta midig ee Maxamed Dave. ka hor wararka dhimashadiisa wuxuu ka mid ahaa dadkay Israa'iil ugu raadinta badan tahay. wuxuu ku dhaawacmay 2006 weerar ay Israa'iil doonaysay inay ku disho. ciidamada Israa'iil ayaa qabtay oo 5 sano xiray intii uu socday kacdoonkii koowaad ee Falastiiniyiinta. doorkii howlaha Xamaas uu ku lahaa darteed maamulka Falastiin ayaa 1997 xiray, balse kacdoonkii labaad ee 2000 ayaa la sii daayay. diyaaradaha Israa'iil ayaa gurigiisa 2 goor burburiyay intii ay wadeen duulaankoodii qase ee 2014 iyo 2021, iyadoo la dilay walaalkiisii la dhashay. lama aqoon siduu u ekaatan iyo 2011 markaa oo uu ka soo muuqday sawir kooxeed la qaaday mar la soo dhaweynayay maxaabiis la iswadaarsaday. waxaa loo malaynayaa inuu door shariifa ka qaatay qorshaynta weerar Israa'iil lagu qaaday oo ay ku jiraan weeraradii u dambeeyay. 5. Khalid Mishcal oo 1956 ku dhashay daanta galbeed ayaa lagu tiriyaa asaasayaasha Xamaas, iyadoo la raacayo awaamir toos ah oo ka timid ra'iisul wasaarihii Israa'iil ee Netanyahu ee xilligaas. ayaa sirdoonka Israa'iil ee Mossad 1997 waxay isku dayeen inay dilaan Khalid Mishcal oo markaas ku noolaa Jordan, Urdun. wakiilo Mossad ka tirsan ayaa Urdun tegay iyagoo sita baasaboorro Kanadiyan oo buga fake ah. Khalid Mishcalna waxay ku dureen sun isagoo goob wada maraya. dowladda Urdun Jordan ayaa daha ka fayday isku dayga dil, waxayna xireen 2 ka mid ah xubnihii Mossad ee dilkan soo qorsheeyay. boqor Xuseenkii geesiga ahaa ee dhintay ee Urdun ayaa ugu hanjabay ra'iisul wasaarihii Israa'iil markaa inuu dhaqso u keeno daawadii suntii lagu diray Mishcal, haddii kalena ay ugu argudayaan shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta safaradda Israa'iil ee Urdun. sidoo kale ra'iisul wasaarihii Israa'iil ee xilligaas ayaa cadaadis kala kulmay madaxweynihii Mareykanka ee Bill Clinton. ra'iisul wasaare Netanyahu wuxuu bixiyay daawadii uu codsaday boqorkii Urdun. Khalid Mishcal oo ku nool Qatar wuxuu markii ugu horeysay booqday marinka Gaza 2012. waxaa qaabilay mas'uuliyiintii Falastiin iyo shacab si ay u soo dhaweeyaan. Xamaas 2017 ayay hoggaanka xafiiska siyaasadda u dooratay Ismaaciil Haniya inuu bedelo Khalid Mishcal. sidaas ayuuna Khalid Mishcal ku noqday madaxa hoggaanka siyaasadda dibadda ee kooxda. Maxamuud Sihaar 1945 ayaa aabbe Falastiiniya iyo hooyo Masaari ah ku dhaleen Gaza. waxaa lagu tiriyaa hogaamiyaasha ugu caansan ee kooxda Xamaas iyo xubin ka mid ah hogaamiyaasha siyaasadda ee dhaqdhaqaaqaas. dugsiga wuxuu ku bartay Gaza, jaamacadda Qaahira. dabadeed wuxuu dhakhtarnimo kaga shaqeeyay Gaza iyo Khan Yunis ilaa ciidamada Israa'iil ay shaqada uga eriyeen muwaqiiftiisa siyaasadeed dartood. Maxamuud Sihaar 1988 ayaa lagu xiray xabsiyada Israa'iil bila kadib markii la aasaasay Xamaas. wuxuu ka mid ahaa raggii Israa'iil 1992 u daabushay lama degaan cidla ah, halkaa oo uu sanad ku qaatay guulihii ay Xamaas ka gaadhay doorashooyinkii Falastiin ee 2006. Maxamuud Sihaar
ayaa noqday wasiirkii arrimaha dibadda ee xukuumaddii Ismaaciil Haniya intaan xilka laga qaadin. Israa'iil waxay isku dayday 2003 inay disho Maxamuud Zihaar markii ay diyaaradii ku soo tuurtay bambo gurigiisa Qasa ku yaal. Duqayntu waxay u geysatay dhaawac yar, balse waxa ku naf waayay wiilkiisii u weynaa ee Khalid, wiilkiisii labaad ee Xusaam oo ka mid ahaa guutada Al-Qasaam wuxuu ku dhintay duqayn diyaaradeed oo Israa'iil Qasa ka geysatay 2008.